buugga hadiyad jacayl hordhaca buugga in muddo ahba waxaa igu lamaanaa dareen kaas oo ilahaa miyaa aad dadka u daahfurtid buug kala dhigaya oo kala dhambalaya dhammaan sirta ku dhex duugan jacaylka anigoo markaa u kacay soo ururinta iyo isku dubaridka waxyaabaha sida taban iyo si toganba uga hadlaya jacaylka taasi oo aan tab iyo taagba isugu geeyey si aan mar uun dadka uga haqabtiro arrimaha jacaylka jacaylku waa tiirka dunidani ku taagan tahay kuna tiirsan tahay dadkuna ay ku tarmaan kuna tamariyaan in laga hadlo oo lagu tuntunsadana ay tilmaanteeda leedahay haddaba wakhtiyadan dambe ayaad mooddaa in jacaylku uu saaran yahay dooni xagga hoose biyaha uga daloosha oo uu qarqoon ku jiro jacaylkii daacadda ahaana uu sii daciifayo dunidana ku sii yaraanayo sidaas darteed buuggan hadiyad jacayl dhalin iyo waayeelba wuxuu u iftiimin doonaa ifafaalaha qurxoon ee jacaylku leeyahay kaas oo dhinaca kalena ku faaqidaya in haddii jacaylka la isla dhisi waayo oo dhidibka dhulka loogu taagi waayo uu dheeliyayo dhibaato yeelanayo to iyo dhalan dhool adduunna uu buuggan waxa uu qofku kaga bogan karaa dhammaan waxa uu tabayo iyo su'aalaha jacaylka ah ee uu u taag waayo kuna noqda laf dhuun gashay sidoo kale hadiyad jacayl waa tusmo iyo tub uu qofku ugu soo hagaago dhammaan wixii ku tacalluqa jacaylka kuwaasi oo u noqon doona qofka hage iyo kala taliya arrimaha jacaylka ku saabsan ee soo wajaha buuggan oo aan in badan ku hamiyi jiray inaan qoro wuxuuna ahaa dareen ku lamaanaa maskaxdayda si uu ummadda af Soomaaliga ku hadasha ugu noqdo dhaxalgal leen waatii uu abwaan cabdideeqsi warfaar cabdisinimo uu hore u yidhi wixii la qoraa quruumo hadhee muxunu hadalkama leeyahay wax aan hamiga iyo hawaawiga buug qorista ku jiraba labadii sano ee ugu dambeeyey ayaan qalinka u qaatay inaan soo bandhigo qoraallo dadka xiiso gelin kara anigoo qori jiray maqaalo ka hadlaya waayaha iyo hadba wakhtiga lagu jiro aakhirkiina waxaan u xuubsiibtay oo aan wakhti siiyey howlaha jacaylka taariikhdu markay ahayd 2022 inkastoo aan ka mashquulay oo waxbarasho iyo caqabado kaleba iga soo dhex galeen haddana kama aan tegin inaan buuggan dhammaystiro buuggan waxaa ku jira oo qofku ka daalacan karaa dhammaan wixii jacaylka khuseeya tusaale ahaan iyadoo jacaylka la qeexayo tilmaamo dhammaystiran dadkana lagu dhiirigelinayo siday cidlada iyo geerigoonka uga samaysan lahaayeen wehel siyaabaha loo dareemo ama la isku dareensiiyo jacaylka sidaad u sheegan lahayd jacayl iyo in haddii qof kugu soo ciiro aanad xaska ugu bannayn dhibaatooyinka jacaylku leeyahay haddii la dhayalsado sidaad dhambaal jacayl ah u qori lahayd sida ubaxyada jacaylka la isu guddoonsiiyo hababka loo haasaawo iyo mahmaahyo jacayl ah isagoo weliba buuggani warbixin iyo xog kaa siin doono maalinta jacaylka adduunka suugaanta iyo jacaylkii dadkii hore sheekooyinka qosolka leh ee dhexmara lamaanaha adigoo xagga u dambaysana kaga bogan kara qisooyinkii dadkii jacaylka caanka ku ahaa islamarkaana u godgalay sida cilmi iyo hodan cali maax iyo cawrala iyo qays iyo leyla waxaa kale oo ku jira sheekooyin jacayl iyo loolan dhinaca lamaanaha oo dhex maray abwaano caan ah sida raage ugaas garaad iyo weerar bulxan hababka uu ku gudbo jacaylku laba hab ayuunbuu jacaylku ku gudbi karaa aragtida koowaad iyo aragtida labaad kuwaas oo koobsanaya siyaabaha qofka lagu jeclaanayo oo dhan aynu mid walba hoos ugu dhaadhacno si aynu u fahanno aragtida hal aad sida ciwaanka ku suntanba waa jacayl aan kugu simin in aad qofka sida uga sii bogato waa qofka la jeclaanaye jacaylkan oo isla markiiba waabayda kugu sayda isla wakhtiga aad qofka ishaqac ku siiso sida erayadan hoos ku qoran ee xikmadaysani muujinayaan jacaylku waa dabayl duufaan waddo dibnaha iyo saaran daymada dadka qaarna jacaylkan aragtida hal aad waxay ku macneeyaan inuu yahay jacayl aan la filan karin kaasoo kugu barisada markuu doono ballan maaha caashaqu iyo bandhig laysugu baaqo waa wax ishan biligteeda boganga ku beerma sida la og yahay jacaylkani wuxuu ku gudbi karaa miridho gudahood isla ilbidhiqsiyana wuxuu hoy ka dhigan karaa wadnaha taas oo aad markiiba dareemi karayso qandhadii jacaylka qod ban tahay meel gabow ka baxo qajeel ubaxii dhammaan qaryo qacdii aan ku arkaan isqoonsadayo balqabsoo waaban kuu qandhaysnahay kaas oo durbadiiba qofka kuu saaraya carfi iyo udgoon ku caashaq gelinaya isha markaan la cuskato ilaan iyo kuu saara cusabo dareen kugu cartama iyo kugu beeraa ishqi jacaylka aragtida hal aad kugu gala wuxuu noqdaa mid ku jaangoo noloshaada oo kaala jihaada in aad nafta ka jarto qofkan ay jamatay laabto xataa calafku ha kaa jiitee abwaan maxamuud nuur fadal waatii gabadh uu jeclaa la guursaday kadibna ay carruuro yeelatay inkastoo ay marwo noqotay ubadna ay dhashay jacaylkii uu gabadhaa u qabay kama uu tegin aakhirkiina waa kii ku gebiyey ubad dhawaaqayn inkastooy dhalaan yeelatiyo dhimashadu ha joogtee si kale dhufsatayee qalbiga maanigan waan dhuur sugayaaye dhudi ka reebaya abwaan ismaaciil cagaf isna waatii inan uu jeclaa loo soo sheegay inay dhoofayso diyaaraddiina ay wakhtigaa loo sheegay duulayso halkii uu joogay ayuu ka soo dhaqaaqay nasiib darro muu soo gaadhin oo iyadoo markaas uun erka gashay ayuu soo istaagay goobtii waa kii dabadeed lahaa isagoo eedda saaraya dhaqsaha diyaaraddu uu ku kacday bilaa la raraa baabuurrada oo baridada waad kaga bogataayee biligtaa qudhaa balaayo ah sida la sheegay beri dambe ayuu nin ay ismaaciil cagaf saaxiib ahaayeen gabadhii oo reer leh la kulmay waxayna weydiisay saaxiibkaa heesihii caashaqa ahaa ee uu tirin jiray ma iska daayey ismaaciil markii hadalkaasi soo gaadhay wuu damqaday waxaana ku soo kacdoontay doogtii jacaylka wuxuuna ugu cataabay adoo gabaniyo adoo guri lehba gabowgaagu way gudboonyiin jacaylka aragtida koowaad kugu gala dadka qaar waxay u aaneeyaan quruxda iyo qofka la jeclaanayo oo leh indho soo jiidasho ama jinyad waana sababta qofka oon gaadhin heer uu ka bogto uu muuqaalka qofku indha daraandarinayo suniyaha carceere cidhifka isla gaadhiyo indho caw la moodo canshaqa abuuraa igu beeray cudurkee quruxdu waa haybad dabiici ah waxayna kicisaa dareenka jacaylka haddaba shaygan quruxda la yidhaah layskuma waafaqsana sida dadku xeel dheer sheegeen iyagoo leh dunidan wax quruxdiisa laysku waafaqsan yahay wuxuun baa jira ubaxa qof kastaa wuxuu ku odhanayaa ubuxu aad buu u qurux badan yahay laakiin quruxda dadka layskuma waafaqsana tusaaleyn 4 wiil ayaa waxaa ka soo horbaxay 4 gashaantimood oo lafiyoonaya waxay isweydiiyeen teebaa ugu qurux badan mid waliba tii ay la noqotay ayuu farta ku fiiqay oo uu leeyahay taasaa u qurux badan dabadeed way isku waafaqi waayeen sida hal qof quruxda layskugu geeyaana sida muuqata way adag tahay quruxdu waa qofba dhinaca uu ka eege in badan ayay Soomaalidu quruxda aad u faalaysay iyadoo daraasadaha ay sameeyeen aad moodo inay muhiimadda dumarka siinayaan sheegayna sida ugu habboon ee quruxda gabadha loogu xulan karo ama loo dooran karaya ay tahay sidan
Soomaalida iyo quruxda. Soomaalidu waxay tidhaahdaa hadday gabadhi 8 sifo oo dumar lagu raaco leedahay asay gabadh tahay guurkeeda sina looma daayo. Sifooyinka ay tilmaamaanna waa sida tan. 4 ay u dheer tahay labada gacmood timaha iyo qoorta. 2 ay u dhuuban tahay qoorta iyo dhexda. 4 ay dhumuc u leedahay labada kub iyo labada cududood. 4 ay u caddahay labada indhood iyo ilkaha labadooda lakab. 4 ay u madowdahay labada indhood wiilkooda iyo labada sunniyood. 4 ay deeb u leedahay labada dibnood bushimood iyo labada mudane naasaha caaradooda. 2 ay u shuban tahay labada dhaban. 1 ay u buuxdo shafka oo ah meesha dumarku quruxda ka sitaan ishuna ku nasato. 1 ay u qoran tahay waa sanka. 26 sifo araggay ugu qurux badan tahay labana maqalkooda ayay dheguhu ku raaxaystaan waana qosolkeeda iyo codkeeda macaan. Carabta iyo quruxda. Soomaalida oo keliya ma aha ee carabta lafteedu waxay tidhaahdaa gabadh wanaaggeed ma dhammaystirna haddaanay 4 u caddayn 4 u casayn 4 cidhiidhi u ahayn 4 u carfayn 4 u doobayn 4 u weynayn 4 u koobkoobnayn 4 u ballaadhnayn 4 u jilicsanayn 4na u yarayn. Faahfaahintooduna waa sidan. 4 ay u caddahay indhaha ilkaha ciddiyaha iyo midabka. 4 ay u cas tahay carabka iridka dhabannada iyo dibnaha. 4 ay cidhiidhi u tahay sanka dhegaha xudunta. 4 ay u carfayso sanka afka kilkilaha iyo cambarka. 4 ay u madowdahay sunniyaha timaha indhaha wiilkooda iyo baararkooda. 4 ay u weyn tahay joogga garbaha feedhaha iyo badhida. Kubabka. 4 ay u wareegsan tahay madaxa indhaha cududda iyo 4 ay u ballaadhan tahay foolka indhaha shafka iyo cajarada. 4 ay u yar tahay dhegaha cagaha afka iyo calaaculada. 4 ay u jilcan tahay sunniyaha sanka dibnaha iyo dhexda. Dhinaca ragga dumarku ragga ma ku raaci karaan qurux? Jawaabtu waa haa inkastoo Soomaalidu tidhaa gabadhu ninka waxay ku dooran kartaa karti aftahannimo iyo raggannimo. Ragguna dumarka quruxda iyo qiimahaba way ku dooran karaan. Laakiin diinteennu waxay inoo sheegtay in quruxdu ay ka mid tahay waxyaabaha lagu raaco dumarka. Ninkii odayga ahaa ee mahmahayina waa kii lahaa. Ilaahow 3 waanu leenahaye 3 hanoo gelin ilaahow talo xumo waanu leenahaye odayaasha hanoo gelin ilaahow foolxumana waanu leenahaye hablaha hanoo gelin ilaahow erweynina waanu leenahaye islaamaha hanoo gelin. Ninku sida uu u jecel yahay inuu guursado gabadh dayar qurux badan caqli badan dhowrsan isagana jecel oo dhaqaalaysa ayay gabadhuna u jeceshahay in loo guuriyo wiil yar ama aan wax badan ka durugsanayn qurux badan caqli iyo ragannimo badan dhowrsan oo iyada uun ku kooban deeqsina ah. Waxaa la yidhi nin gaaban oo fool xun baa wuxuu qabay gabadh qurux badan. Maalin buu u soo galay iyadoo si fiican isu qurxisay markaas buu isha la raacay awoodina waayey inuu ka jeesto. Markay aragtay siduu u eegayo bay tiri maxaa kugu dhacay? Ayuu ku yidhi wallaahi aad baad u qurxoonaatay. Markaas bay tiri ku bishaarayso inaan aniga iyo adiguba janno gelayno. Suu weydiiyey oo xaggeed ka ogaatay markaas bay tiri anoo kalaa lagu siiyey markaas baad shukriday. Adoo kalena waa lay siiyey markaas baan sabray qofka shukriya iyo ka sabraana waa ehlu janno bay hadal ugu soo jartay. Waxaa la yidhi nin baa isaga oo faras fuushan waxaa ka hortimid naag aanu quruxdeeda iyadoo kale hore u arag. Markaas buu ku yidhi hadduu nin ku qabo eebbe ha kuu barakeeyo haddii kalese ii sheeg. Markaas bay ku tidhi maad iska kay dhaaftid wax aanad jeclayn baa igu yaale. Maxaa kugu yaal? Madaxayga ciraa ku taal. Intaa markuu maqlay buu faraskii saynta u rogay si uu u dhaqaaqo waase ay joojisay oo intay timaheedii hagoogta ka qaaday tustay mise waaba timo madowgooda wax lagu misaalo aan la arag. Waxayna ku tidhi walaahi inaanan weli 20 jir gaadhin ha yeeshee waxaa madaxaaga iiga muuqatay ero waxaana aan rabay inaan ku tuso in annaguba aan idinku nacayno waxa aad nagu nacaysaan. Waxa hubaal ah in dumarku ragga quruxda ku raacaan laakiin malaha in ragga quruxda lagu raacaa raad badan ma laha. Gabadh baa gabadh weydiisay naa ragkee baad ugu jeceshahay? Markaas bay tidhi waxaan ugu jeclahay gadh cadaale guunyo badane gaajo gooye ku garaabe ku garab taagne geef ka dheere garoor madaadshe gaawe carafle gaadhi farasle gaadhka haaye deris gargaare. Abwaan canab guuleed oo ka baryaysa eebe inuu siiyo nin si fahan hoos ku qoran leh waxay tidhi ilaahow adaa qaadiroo qaybshay dunidii adigan qurumaha ku nool quudshay kaligaayee qalbiyada adigaa daalacdoo qodob ku seegaynee geesi qiimo weyn lagu ogyo qayrkiiba u haysta soddonkii quraankana nin ay qabatay laabtiisu oon qalayn salaadana siduu candil ugu qeexay qaxar iyo dhibaatiyo mid aan qaladba ii geysan qarkii aad ka eegtaba mid aan meelna laga qoonari kaasuu qalbigu doortay oon qaadan kari laayee qaadirow ilaahow isi waa isqadarin layne. Aragtida 2 habkan aynu si fiican u kala hufno una kala haadino si ay ugu sahlanaato fahankaaga. Waxaa la yidhaahdaa jacaylka aragtida 2 ku gudbaa 4 nooc ee qofka loo jeclaado ayuu ku taxalluqaa 4taasoo kala ah diinta qoyska maalka iyo quruxda. Inkastoo quruxda uu kaga saamayn badan yahay inta kale xagga jacaylka aragtida hal aad kugu asiibana loo aaneeyo quruxda. Waa kaan nin abwaan ah oo sharaxaya 4 hab ee qofka loo xisho isagoo wiil doob ah ugu hogga tusaalaynaya siduu u soo xulan lahaa ruuxuu la wadaagi lahaa nolosha. Geelow si gaara u ogow tan u gadaalaysa. Jacaylka noocan ah waa hab xanaf tiran oo ku siiya waqti aad kaga bogato qofka. Waxa aad ka bogan karaysaa qofka dabcigiisa kartidiisa iyo akhlaaqdiisa markaad si hufan u barato hadlayana loo xeeriyo 3 li marka barashada laga jid ma la martay jidiin mala cuntay jabad mala gashay. Abwaan hadraawi mar uu barashada jacaylka ka hadlayay isagoo 3 ku salaynaya waa kii lahaa umalay jacayl weli jaar ma noqoteen jid ma wada lugayseen mala cuntay jidiin weli ma kaa jaray dadkiinii jiidkaad la dhalatiyo gooni joog ma kaa dhigay. Aragtidani waa fursad aad noloshaada sahan ugu geli karto ileen noloshaada waxaa ku soo biiraya qof ka qiimo badan wax kastoo lagu dadaalo. Ninbaa geelba halka lahaa dabadeed wuxuu doonay gabadh. Hashi keliya ee uu lahaa ayuu u bixiyey yarad. Rag ay qaraabo ahaayeen ayaa weydiiyey waar geelba hashaad ka lahayd maxaad u bixisay ee aad isu xoolo tirtay. Ninkii wuxuu raggii ugu jawaabay nin 2 kor u taagan arkayaa 4 hoos u foorara muxuu ku falayaa isagoo malaha ka wada nin 2 naasood ee inanta oo kor u taagan arkayaa 4 naasood ee hasha ee hoos u foorara muxuu ku falayaa. In aad sahan u gasho oo aad baaritaan qoto dheer samaysaa malaha waa mid aan la dhaadayn. Sahankaygu dheeraa sahaydaydu badanaa kuu socdaalay awgaa.
saaxiibadaa kaa waraysto. Ku su'aalay jaarkoo siday kugu sifeeyeen. Ruux lala seeso nololo. Aan lala simin abuurkoo guur lala saxaa tahay, jacaylka aragtida labaad kugu gala wuxuu soo jiitamaa waqti si uu qofku uga jeelbaxo ruuxa uu nolosha la wadaagi lahaa. Sheekadan bal si fiican ugu bogo si ay kuugu iftiimiso baabkan aynu ka hadlayno aragtida labaad. Sheekadii Kaba Calaf iyo walaalkiis Faarax. Beri ayaa waxaa jiray laba nin oo walaalo ah, labadaa nin mid waxaa la odhan jiray Kaba Calaf, ninka kalena waxaa la odhan jiray Faarax. Kaba Calaf ayaa weynaa, Faaraxna wuu yaraa, Kaba Calaf weli muu guursan. Dadku Kaba Calaf waxay ku xaman jireen inuu yahay nin nacas ah, Faaraxna uu yahay nin fariid ah oo reerkoo dhan wax laga weydiiyo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in degmadii ay deganayeen Faarax iyo walaalkiis Kaba Calaf ay abaari saamaysay oo xaaluf iyo biyo la'aani ka dhacday, kadibna roob uu ka daay meel aan degmadoodii ahayn. Sidii reer miyiga caadada u ahayd ayay soo sahamiyeen meel ay dejifaan reerkooda oo doog leh, kadib meel ayay u soo heleen wayna u guureen. Markii ay xoolihii degeen oo nimcadii meesha taallay ay afka dareen ayay dhallinyaradii bilaabeen ciyaaro habeenkii la tumo. Sida wiglada, heelada, walasaqada, laandheerta iyo heesaha oo ay caado u ahayd in la tumo marka roob ku da'o ee xooluhu u nimcaystaan, markaas oo dadka reer miyiga ahina ay raaxo dareemaan oo ay ka nastaan biyo la'aanta iyo xoolahoodii oo u barwaaqooba. Had iyo jeer reer miyigu waxay isguursadaan marka roobku u da'o. Xitaa haddii ay gabadh iyo wiil sheekaystaan oo ay heshiiyaan, waxay odhan jireen marka roobku da'o ayaynu isguursanaynaa. Ninkii Faarax ayaa waxa uu la sheekaystay gabadh reerkoodu leeyahay deegaanka ay u guureen isaga iyo walaalkiis Kaba Calaf. Gabadhii ayay go'aan ku gaadheen inay isguursadaan, iyadoo arrintii halkaa ay ugu xidhan tahay Faarax iyo gabadhii ayaa waxa dhacday inay islaayaan Faarax reerkoodii iyo gabadha reerkoodii. Dagaal xun baa dhex maray labadii reer, rag badanna way iska laayeen labada dhinacba. Talo ayaa faro ka haaday oo waxay ku qabsatay iyo Kaba Calafba inay meesha ka guuraan oo deegaankoodii dib ugu saran. Ninkii Faarax waa nin jacayl hayo, waa ka samri waayey gabadhii ay isjeclaayeen, kadibna wuxuu go'aansaday inuu gabadhii la soo tago. Reer miyiguna waxay samayn jireen dumarka 90% waa lala tegi jiray, 10 hadhayna waa la bixin jiray 10%. La tegiddu waa nooc ka mid ah guurka soo jireenka ah. Sidii caadada u ahayd dadkii hore waxay samayn jireen marka nin gabadh la soo tegayo wuxuu ka haysan jiray in adeerkii haddii lagama maarmaan noqon weydo ayuun buu ka haysan jiray walaalkiis iyo adeerkiis. Sababtoo ah marka uu gabadha la soo tago waxaa reerka gabadhu ka dhalatay loo diri jiray walaalkiis, adeerkiis iyo aabihiis si ay u soo weydiistaan gabadha. Ninkii Faarax wuxuu ku soo dhex dhacay ilmaadeeradii, wuxuu u sheegay in aanu marnaba dhaafi karin gabadha oo uu jecel yahay, dumar kalena aanu ilsaarayn inta ay nooshahay. Ilmaadeeradii waxay kula taliyeen in uu iska daayo, waayo colaad xun oo rag layska laayay ayaa ka dhex dhacday labada reer. Marka haddii ay arkaan niman ka socda beeshii ay islaayeen, waxay u malaynayaan inay doonayaan in ay rag dilaan, marka iyagana waa la qudgoynayaa. Sidaas awgeed ayay kula taliyeen in Faarax uu ka samro gabadha. Faarax kuma qancin arrintaas ay u soo jeediyeen ilmaadeeradii, wuxuu go'aan ku gaadhay in uu keligii iska tago. Walaalkiis Kaba Calaf ayaa yidhi aniga ayaa ku raacaya mar hadday ku diideen ilmaadeerada. Kaba Calaf ayaa raacay Faarax waxayna aadeen gabadha iyo meeshii ay deganayeen, dhulka u dhexeeya waa masaafo badan, reerana ma yaaliin, muddo ilaa habeen iyo maalin gaadhaysa ayay nimankii waddada sii hayeen. Maalintii dambe ayay ku soo baxeen degmadii gabadhu ka dhalatay, ayaantaas oo dhan ayay dhuumanayeen. Sababtoo ah colaadii ayaa weli sii qoyanayd, casarkii ayay gabadhii oo awr caraabinaysa meel ka heleen, waxayna ku yidhaahdeen gabadhiyahay adiga ayaanu kuu soconnaa, waadna og tahay labadeena reer colaada ka dhex oogan, marka waxaanu doonaynaa ilow iyo ilowba in aadna raacdid caawa. Haweenaydu waa gabadh gabdho ka tagtay oo fariidnimo ku dheehan tahay. Markiiba waxay u sheegtay geed ay ugu timaado caawa. Waqtigu weli waa guur roobku u daayaa. Afarta jaho ayaa waxaa iska soo qabsaday roob, nimanku wax yar oo jecsina ayay siteen, intiina habeenkii iyo maalintii ay jidka ku soo jireen ayay soo laasteen. Markii habeenkii dumay ayaa waxa dhacay in nimankii roobkii geedkii hoostiisa uu ku qadqadhiyo, gabadhiina ay ka raagto. Gabadhii waxaa ku dhacay walaaladeed iyo ilmaadeeradeed oo geela hor seexan jiray ayaa roobkii guriga ka soo jirsaday, sababtaa awgeed ayaanay u soo bixi karin. Nimankii waxay raagsadeen gabadhii, markaasay gurigii dudadiisii intay isa soo taageen ayay dhegaysteen meesha ay ka sheekaynayso, dabadeedna way gujiyeen. Gabadhiina way garatay in loo yeedhayo, markaasay sheeko ay iyagana wax ugu sheegayso walaaladeed iyo ilmaadeeradeedna ay sheeko dhacday uga dhigayso ayay ka sheekaysay. Waxay tidhi beri ayaa waxa dhacday nin iyo gabadh ayaa isjeclaa, labadoodii reer ayaa islaayay, nimankii gabadhii way ka samri waayeen, dabadeed waxay soo aadeen gabadha reerkoodii, markaasaa roob daay sidan caawa oo kale. Markaasay nimankii gabadhii la hadleen, waxayna ku tidhi haddii aad gaajoonaysaan caanaha dhiilka ku jira ee xerada adhiga dabadeeda yaa la caba, haddii aad doonaysaan in laydin laayana guriga soo gala, haddii aad aniga idoonaysaana geedkii taga. Nimankii gabadha ay walaalaha ahaayeen may fahmin arrinta, laakiin waxa markiiba fahmay nimankii doonayay ee ahaa Faarax iyo Kaba Calaf. Markiiba waxay qaateen dhiilkii caanaha ahaa ee ay gabadhu u tilmaantay, waxayna tageen geedkii ballantoodu ahayd. Markii roobkii istaagay ayaa nimankii gabadha ay walaalaha ahaayeen gurigii ka tageen oo ay xeradii geela horteedii u hurdo doonteen. Gabadhiina markii ay nimankii ka hoydeen ee ay firaaqo heshay ayay soo aaday geedkii ay kula ballantay Faarax iyo Kaba Calaf. Nimankii gabadhii ayay gacanta qabsadeen oo guure ugu dilaacsheen. Habeenkii oo dhan ayay sii guuraynayeen, markii waagii dilaacay iyagoo maraya meel aan wax dhaqaaqa joogin, cuntana aan sidan ayay gabadhii nimankii ku tidhi ina quraaciya. Faarax oo ah ninkii gabadha la soo tegay ayaa yaabay oo yidhi isagoo la hadlaya Kaba Calaf, walaal gabadhu maxay leedahay, ma meel wax lagu cuno ayaynu joognaa, waa maxay quraacda ay doonaysaa, ayuu Kaba Calaf weydiiyey. Wuxuu Kaba Calaf ugu jawaabay waxay leedahay aynu cadayanno, wuu fahmay dabadeed waa la cadiday. Markii ay duhurkii noqotay ayay daaleen, kadibna geed hadhweyn ayay fadhiisteen, markaasay haddana gabadhii tidhi ina nasiya. Faarax ayaa haddana yaabay oo yidhi walaal sawnagan fadhina ee hadhsanayna maaha, waa maxay nasashada inoo hadhsani. Wuxuu haddana Kaba Calaf ugu jawaabay waxay leedahay kabaha aynu iska bixinno, kabihii ayaa layska bixiyey, wayna nasteen, kadibna galabtii ayay ka caraabeen geedkii.
markii qorraxdu sii dhacaysay ayay gabadhii tidhi degmadii ayaynu soo galnay faarax ayaa yidhi gabadhu miyay inaga dheer tahay mise way inaga indho fiigan tahay waa maxay degmada aynaan arag ee ay iyadu aragtaa wuxuu kaba calaf ugu jawaabay waxay aragtay haad ahaadu had iyo jeer waxay joogtaa meesha ay oontu taallo degmadu taallo faarax oo la yaabay gabadhu waxay leedahay iyo sida uu u afgaranayo kaba calaf ayaa waxay soo gaadheen degmadii ay sheegaysay reer degmada ugu kooneeya ayaa martigeliyey nimankii iyo gabadhii ka bacdina waxaa loo soo dhigay cunto sidii reer miyigu samayn jireen marka ay dad martigeliyaan oo ahayd in ama xoolo loo qalo martida ama raashin koob subag ah leh lasoo dhex dhigo iyo caano reerkii ay u hoydeenna sidii oo kale ayay sameeyeen oo waxay siiyeen raashin koob subag ah la dhex dhigay iyo caano gabadhii ayaa waxay ka xishootay inay subagga ragga hortooda ku shubato cuntada meesha ay ka cunayso markaasay aragtay ninkii kaba calaf oo subag dhinaciisii ku shubtay ninkii kalena wuu ku shubtay gabadhii ayaan in yarna looga tegin subaggii markaasay intay fandhaalkii raashinkii dhinacii kaba calaf saartay ayay tidhi maanta kaba calafow hadal aad i tidhi beerka ayuu sidaa ii kala jeexay markaasaa subaggii iyo caanihii oo iswataa waxay u soo dareereen dhinaceedii waxay faruurtay gacan dhan oo ay u soo raacaan subagga iyo caanuhu ninkii kabi calaf oo markiiba wax fahmi jiray ayaa fahmay waxay u jeedo oo ah in ay caanaha iyo subagga intay caawa ka shubato ragga ay berrito ka dheerayso halkaana ay ceebi ka raacdo ragga markaasuu isna intuu raashinkii oo dhan isku dhex walaaqay ayuu yidhi ana hadal aad i tidhi maanta caloosha dhan ayuu sidaa ii walaaqay gabadhii ayaa ka yaabtay fariidnimadiisa ninkii kaba calaf markiiba waxay qoondaysatay in uu guursado ninkaa kaba calaf markii ay guryo tageen ayay gabadhii tidhi intaasi waxay dhaar iga tahay in aan nin aan kaba calaf ahayni i guursanayn haddii kale gurigayagii ayaan qabanayaa ninkii faarax talo ayaa ku caddaatay oo wuxuu sameeyo ayuu garan waayey laba mid ayay isu soo taagtay in uu gabadhii dhibta uu maray ay dib isaga noqoto iyo in uu walaalkii oo ka weyn oo dhibtana la soo maray uu u guuriyo wuxuu markiiba go'aansaday in uu kaba calaf halkii gabadhii ugu dhiso gabadhiina waxaa calfaday oo guursaday ninkii kaba calaf ninkii faaraxna halkii ayaa gabadh kale looga doonay ninbaa gabadhiisu dhimatay geelba awr uu ka lahaa ayuu ku axmay mar la weydiiyey maxaad awrkii hantiba ku ahaa aad ugu qashay wuxuu ugu jawaabay tanna waa ku duugis ta kalena waa ku doonis xigsiisanka oo uga jeedo marka ay reer ku maqlaan in awrkii keliya een lahaa aanan kala lexaa jeclaabin oo aan ku axmay inantoodii inay ta kalena waa xigsiisankee ay xagga hore iga siin doonaan oo ay odhan doonaan ma ninkii inanteenna sidaa ka yeelay ayaynu inan u diidnaa waa maya oo inantuna ku soo dhiirato inay buuxiso booskii walaasheed raggii hore si ay u baadhaan gabadha garashadeeda iyo inay u cuntamayso waxay ku xidhi jireen hal xidhaale waxaana ka mid ahaa ninbaa intuu hablo gayaana u yimid weydiiyey 3 su'aalood oo uu ta ugu garaadka fiican kaga dhex xulanayay wuxuu yidhi 3 arrin ii sheega 1 geel xeradii 2 rag gogoshii 3 garow iidaankii hablihii mid ka mid ah ayaa garatay oo tidhi geel xeradii waa nabad rag gogoshii waa godob lii garow iidaankiina waa gaajo odaygii iyo inankii uu dhalay ee hablaha martiyey wiil iyo gabadh baa ku heshiiyey inay isguursadaan markaasuu wiilkii aabbihii kala tashaday wuxuu damacsan yahay odaygiina wuxuu ku yidhi balkaalay isoo tus gabadha aan kula soo eege kadibna inta laysa soo raacay ayaa la yimid inanta reerkoodii reerka waxaa joogay gabadhii iyo gabadh ka yar oo ay walaal yihiin oo keliya wiilkii iyo aabbihii waxay ku yidhaahdeen rag ha joogo ama ayaanu joogine annagu marti baanu idiin nahay waxaana ay fadhiisteen ardaagii reerka kadibna intay hablihii tashadeen ayay u qaleen neef hilbihiina way soleen gabdhahana inantii yarayd ayaa u soo qaaday soortii una keentay raggii waxaanay ku tidhi waan raagnay oo rag laan baa leh waa riyo oo idolaan baa leh waa solay oo biyolaan baa leh kadibna intay hor dhigtay ayay dib uga laabatay oo sii laafiyootay odaygii baa yidhi waar matanaa gabadhii markaasuu yidhi wiilkiina mayee waa tii ka yarayd odaygii oo basarkii iyo habkii inantii hore lasii dhacsan ayay tii kalena weelkii ay wax ku cuneen ka soo doontay waxaanay iyana ku tidhi in caano la ciday in caano u ciday in caris laalaadisa intaa iyo in dhiggeeda ah kadibna odaygii iyo inankiisii dibay isaga laabteen isaga oo ujeeddadii uu lahaa gaadhay qaabka qofka iyo jacaylka maxaa iska quseeya qaadirkeen markii uu dunidan ku abuuray quruumo uu midba qaab u samaysan yahay midaba kala duwanna qaatay isku dhex qasan oo quruxda iyo foolxumaduba qayb ka yihiin ayaa haddana qof kasta oo dunidan qayb ka ahi waxa uu jecel yahay wax qurxoon jacaylkana uu la qaybsado qof sida qorraxda u ifaaya sidaasay tahay ka aan yara qorqornayni miyuu ku qadayaa jawaabtu waa maya waayo eebbihii dunidan dhidibada u taagay dadkana ku dhex abuuray ayaa qaababkan isku dhafan isugu dheeli tiray alilahan waa halkii cilmi boodhariye waxa qaar bacayn looga aha iscajabiyeene soday jacaylku wuxuu guri ka dhistaa foolxumada iyo quruxda dhexdooda aragtida laba ad waa qaab alaaba foolxumada daah saara maadaama aanu jacaylku dhaqso kugu soo boodayn oo uu wakhti qaadanayo bal dhuux oo u fiirso tusaalahan waxaad aragtay qof aanad ku qancin qurux ahaan markii kugu horraysay ee aad la kulantay ee aad ishaqac ku siisay kaba soo qaad qofkaas inaad baro ka wada shaqaysaan ama bar ku wada nooshihiin ama wada joogtaan meel lagu barto cilmiga ishu baaladaymoodka maalintii dhowr jeer ay bidhaansato oo mar kasta indhahaagu qabtaan marka dambe si aanad ogeyn ayay qofka aragtidiisu kugu milmaysaa oo aad ula qabsanaysaa aragtidii aad qabtay ee ahayd inuu fool xun yahay ayaa yaraanaysa waayo qofkan waxaa laga yaabaa inaad kelmado iyo kaftanba wadaagteen in muddo ah aakhirkana waxaa suuragal ah inaad jeclaataba ileen caqligu mar buu foolxumada qurux ka dhigaa waa dhab dabadeed haddii lagu su'aalo oo lagu weydiiyo ma cidbaad magaalada ka weyday maxaad ku jeclaatay qofkan ee aad ku dooratay markaa malaha waxaa habboon inaad ku jawaabto oo aad soo xasuusato heestii odhan jirtay duni wada hallowsan dadkan wada jacaylkaa ee daad kalgacal iyo dhammaan saaran doonyaha ayaan dacal ka raacee madayrkii makaan gubay la yaab malaha dooquye inkastoo ay Soomaalidu tidhaahdo jacaylka quruxda ka beerma ayaa ka badan ka caqliga ka beerma haddana jacaylka caqliga ka beerma ayaa ka imri dheer kan ka beerma quruxda la soco qaybaha dambe oo ka mid noqo asxaabta ku xidhan buug maqal barta guduudan guji suulka taagan riix